suuqii hudheeladii in badan way xidmayaan lacag la joojiya oo la xidhaa faa'iido ay keentaa ma jirto baaba mooyaane war ma qarxaynu sugnaa madaxweynaha gobolka Togdheer markuu marayay oo khudbada ka sheegdinayay uu yidhi baarlamaanka waxaan weydiinayaa inay bal sheegaan doorashada isku sigtani waxa ay micnaheedu ay tahay waxaan aad uga hambaleynayaa golaha wakiilada oo su'aashii madaxweynaha si qoto dheer uga jawaabay sheegayna doorashada isku sigtani micnaheedu waxay tahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhammaantiin bulshada reer Somaliland meel kasta aad joogtaanba marka ugu horeysa waxaanu ka ducaysanaa ilaahay ka baryaynaa meelaha una weli roob ku helin ee abaaruhu ay taagan yihiin inuu ilaahay roob khayr qaba ina siiyo dadka aad bay ugu eelanayaan dib baa jirta dadku way soo qeyliyaan meelo badan oo kale xitaa roob ka helay dadku weli kamay soo kabanin abaarihii hore weli wuxuu u baahan yihiin nafaqeyn iyo taakula ayuu u baahan yihiin marka waxaan leeyahay meel walba aan joognaba aynu gacanta isqabsanno sidii dadkeena bulshadeena aynu ku xidhneen aynu u badbaadin lahayn siiba inta maanta dibtu aad u sii haysato ee aan weli roobabkii helin oo u baahan in la gaarsiiyo xilliga ilaahay roobkiisa siinayo inaan gacanta aynu ugu qabanno oo aad looga soo deerinayo una baahan in aynu dhab ah u eegno taasoo aan u farayo wasiirada iyo cid walba oo ka mas'uula bulshada ciddii wax haysataa aan leeyahay yaan hoosa loo eego bulshadaasi intaas waa fariinta koowaad ee aynu hormarsanayno ee inaynu ummadeena wax u qabanno dhowr arrimood ayaa muhiimaddu tahay maanta bal inaynu taataabanno runtii mar walba anigu aan hordhigaa aan qaybta koowaad ka hadlaa waa waxbarashada dalku waynu odhan karnaa markaaynu sii eegno dalkeena maalintii la soo galay ilaa maanta waxbarashadiisu kor way u soo socotaa laakiin tiro ahaan ayaan odhan karaa ayay kor ugu soo socotaa laakiin muddadii ugu dambeysay ama 5 sanadii ugu dambeysay taya ahaanna hoos bay u socotaa tiro ahaanna kor bay u socotaa marka labadaasi laba isqaban karaya ma aha waxaan ka xumahay qaabka loo qiimeynta loogu sameeyay iskuulada private-ka iyo kuwa public-ka ayadoo loola jeedo in ummadda lagu tahawareeriyo in wasaaradda waxbarashadu tacliintii kor u qaaday taasoo aan odhan karno ma aha wax ummaddu ay qaadan karayso ummaddu wuxuu u baahan tahay in loo soo hordhigo bal waxaan ay ka hadlayaan oo life oo ay jiraan waan wareystaa anigayga iskuulada private-ka tagay waxaan tagay iskuulada public-ana imtixaanaadka sida looga qaadayo sida la isugu dhexdarayo sida waxaan loo maamulayo u maleyn maayo inay yihiin qaab qiimeyn lagaga soo dhex saari karayo waayahay waxaan odhanayaa arrintaasi waa arrin propaganda iyo system ay ugu badan tahay inteeda badani laakiin weli waxaan leeyahay wuu jiraa tayaxumadii jirtay ee iskuulada public-ka caasimadeena Hargeysa oo barta aynu inta badan aynu eegno caasimadeena Hargeysa markaan agagaarkeeda eegay iyo dhismaha ka socda waa dal koraya dhismihiisu socdo ubadkiisu si kordhayaan guri walbaaba iyo dhalashadu ay badan tahay sida Yurubta dhalashadu yaraatay ma aha waxaan ku qiimeyn karayaa Hargeysa daafaheeda waxa ka socda bil walba dhamaada 150 iyo 200 guri inta u dhaxaysa ayaa dhameystirma ma odhanayno dhaqdhaqaaq ma jiro wuu jiraa oo taasoo dhismo waa socdaan laakiin waxa isweydiin leh 200 guri bil walba ku soo kordhaya waxa inta badan ay yihiin dadkii ku jiray suuqa hoose ayaa markuu dhaqaalahoodu yar koro ayay wax u baxaan dhinacyada si guriyo ka yar waaweyn guriyada hore oo helaan guryaha kalena waxa soo buuxiyaa dadkii tuulooyinka iyo magaalooyinka fofo ka yimi ee Hargeysa u soo doontay bal inay qoodi wax ka helaan marka waxaan sanadkii waxaan odhanaynaa waa 2400 guri ayaa dhismaya 2400 guri haddana hal guri walba 10 caruur ayuu leeyahay maxay noqonaysaa waa 24,000 oo caruur ayaa ka soo baxaya iskuuladoodii maye caafimaadkoodii wadooyinkoodii maye
waxaasaa loo baahan yahay yaa laga fakero dhammaan carruurtaas waxay u baahan yihiin iskuulo cusub goorma ugu dambaysay caasimadda hargeysa oo laga sameeyo iskuulo cusub dawladdu leedahay waa ta keentay iskuullada baraafitka inay bataanoo guri yaroo walbaaba inta yaa iskuul ya laga dhigay carruurtii ay dhex fadhido subaxii waxaan arkaa markaa salaada subax laga soo baxo waxaad arkaysaa basas carruur yaryar oo 10 jir ah yaa ururinaya yaa oo 5 iyo barka ama 5 subaxnimo guriga laga soo saarayo because waxa weeye iskuul u dhow ma jiro baskaas wuxuu wareejinayaa ilaa iyo 6 subaxnimo wuxuu gaarsiinayaa bartee ay gaariyeen 6 subaxnimo ilmaha labada duhurnimo gurigii lagu soo celinayaa sababta intaasay u dhacday waxa weeye ma laha iskuul u dhow guryaha la dhisay 200 iskuula iskuul kaliya oo wali loo dhisay oo laga taagi ma jiro wasiirkan wuxuu ku faanayaa gobolka Ceerigaabo ayaa 20 iskuul u dhisay bal ha keeno ha soo taago baahan oo muhiimadu tahay bulshada muhiimadeeda weyn halka degan tahay oo caasimadda ayaa iskuul la malihi yaa wax loo qaban gobolada laakiin waxa leeyahay priority-ga loo kala eego oo meel walba waxay tahay Ceerigaabo way u baahan tahay waa gobol dib uga dhacay laakiin waxaan leeyahay hoos u eeg caasimadana iyo halka mariso taas waa halka waxbarashada oo waxaan leeyahay wali faray kama qodna waliba intaas waxaan leeyahay yaana tiro loo eegine tayaha loo eego taas waa halka waxbarashada hembriyahan waxa socday diiwaangelintii ururada iyo waraaqii looga baahnaa xisbiyadu inay soo xereeyaan waxaan aad ugu hambaleynayaa gudoomiyaha komishanka diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada oo si qoto dheer leh oo sharaf leh oo ummadda u waasiciyey ama u sheegay waxaan ay diiwaan gelinayaan wuxuu yihiin qof allaale qofkii ay kaga jira yaa mugdina waxaan odhan lahaa dib ha u eegaan yaa gudoomiyaha hadalka waana ugu hambaleynayaa sida quruxda badan oo u soo dhigay taasuna waa waxyaalaha aanu baahannahay inaynu mar walbaaba shuruucdeena aynu ka ogaano haddii kale shuruucda aynan ogaan waxba yaa inagu dhacayo horumar samayn mayno haddaba saddexda xisbi siday u soo xereeyeen waa sidii sharciga ahayd sidoo kale waxaanu leenahay arrintu sidaa sharciga tahay un ha loo raaco ha la maro waayahay halkaa haddaan kaga baxo arrintaasi madaxweynuhu muddadii imika yaa u dambeysay wuxuu socdaal aad u dheer ku marayay gobolada dalka gaar ahaan 6 gobol ee waaweyn isagoo ka soo bilaabay caasimadda awdal ku xigsiiyey gabiiley yaa ku xigsiiyey saaxil ku xigsiiyey burco iyo oodweyne ku xigsiiyey sidaa u waday ilaa iyo laascanood welina ku jiraa socdaalkiisii bulshadu siyaabo kala duwan ayay u aragtaa socdaalkaasi dan markay bulshada ka eegto waxay tiraahdaa madaxweynuhu bulshadiisa iyo dadkiisa inuu la kulmo waa muhiimad weyn maadaama waqti horeba uuna la sameeyay arrintaasi maanta inuu la sameeyaa waa muhiimad weyn dhanka kalena bulshadu waxay leedahay maadaama ay jiraan abaaro jiraan socdaal jiro jiraan dhibaatooyin badan sixir barar jiro siyaasad xumo jirto waddanka dhammaan intaasooba ayadoo jiraan umay ahayn madaxweynuhu waqtigii uu u bixi lahaa gobolada socdaalka intaa la eeg iyo kharashka intaa la eeg uu ku bixin lahaa maadaama aynu ognahay maanta gobolada weliba gobolka togdheer siiba hawdka oo dhani in abaaruhu si aad iyo aad weyn ay uga jiraan qayladhaantuna ay soconayso haddana waa la soo dhaweynaya madaxweynaha waa madaxweynaha qaranka gobol walba tagaba se waxaan in yar leedahay oo le in la taabto madaxweynuhu gobolka togdheer markuu marayay uu khudbadda ka sheegdinayay su'aal buu bulshada weydiiyey su'aashaasoo ahayd uu yidhi baarlamaanka waxaan weydiinayaa inay bal sheegaan doorashada isku sigtani waxa ay micnaheedu ay tahay asagoo mar labaadna ku celiyey oo xildhibaanadii meesha fadhiyay yidhi bal waxaanu idin weydiinayaa doorashada isku sigtan micnaheedu wuxuu u yahay waxaan aad uga hambalyaynayaa golaha wakiilada oo su'aashii madaxweynaha si qoto dheer leh maanta uga jawaabay oo tusay sheegayna doorashada isku sigtani micnaheedu waxay tahay waa guul aan u hayo baarlamaanka waxaana leeyahay sidii saxda ahayd ayay mareen waan arkayay dad badan
oo hadallo kala duwan ka sheegaya wuxuu yidhi haddaan marba meeshaanu doonayno dhinaca xun ka eegno adeer wax inoo soconaya ma jiraan hore waxay xukuumaddu iyo bulshaduba ay lahaayeen nabadda ha la dhowro waa kow war nabadda ha la dhowro waa laba waa nabadda aynu ilaashano waa waxaynu iibinayno kelmadda labaad loo saxeeyo iyo sharciyadeena aynu raacno madaxweyne iyo guurtida iyo dhammaan bulshada waxaan leenahay nabadeena aynu ilaashano oo shuruucda dalka loo dejiya aynu raacno oo aynu isku ixtiraamno qof walbaaba halka uu kaga jiro waddankan golaha wakiiladu waa golaha sharci dejinta ee dalka ayagaa leh sharci dejinta siday u arkaan saxana taasaa inoo ammaanta 5 sanadooda fadhiyaan inay inagu hogaamiyaan madaxweynuhuna wuxuu xaq u leeyahay waxay la soo dejiyo inay ku hiriyaan laakiin waxaan leeyahay laakiin aragtidayda saxa ah waxaan oran karaa waxa weeye nabadana aan ilaashano shuruucdeedana aan raacno wixii Allah wixii inaga qaldana aynu dhinacyada ka toosino aynu arintaasi suurtagal ka dhigno taasa inoo inuu dalkanu sii jiro waxna uu noqon karo guurtidana waxaan filayaa inay halkaasi hoos u eegi doonto dalka nabadiisa ka talin doonto dalkan oo noqon doonin meel aynu ku yooyootano oo hoos inoo rida taasi waxa weeye arrimaha markaynu eegno dhinaca dastuuriga laakiin waxaan leeyahay bulshada waliba waxaan leeyahay dadka ama xildhibaana ahaadaan ama ahaadaan mas'uul ahaadaan ee hadlaya inay hadalkooda ka fiirsadaan haddii wax diidan yihiin meel loo maro ayaa jirta iyo dariiqo loo maro taasina halkaasi ayaanu maanta aan kaga baxaya arrinteena saddexaad aynu ka hadlaynaa waxa weeye dibta maanta jirta ee ka jirta halka dhaqaale xumada dalka maanta halku marayo dab ahaan marka tagtid dukaamada aad hoos u wareysatid waxay ku oranayaan dadkii biilka naga qaadan jiray in badani biilkii way bixin kari laayihiin iskuuladii dad badan waxay ku oranayaan lacagtii iskuulada waanu bixin kari laanahay markaad eegtid suuqii hudheeladii in badan way xidhmayaan waxaasoo dhan waxa ugu wacan waxa weeye lacagtii socon jirtay wareegi jirtay oo la joojiyey lacag la joojiya oo la xidhaa faa'iido ay keentaa ma jirto baaba mooyaane xukuumadda waxaan leeyahay ha la sii daayo ummadda oo dhaqaale waddanka ha lagu sii daayo haddii kale waddanku saasuma sii socon karayo laakiin waanu ururinaynaa allaale wax faa'iido oo inoogu jira ma jiro dadkana haddaan la soo gaadhin oo si dhaqsaa loo soo gaadhin waa bilbiilahaba marka la afuufo oo la afuufo oo la afuufo marka dambe wuu qarxaa war ma qarxaynu sugnaa ilaan waynu dareensannahay oo qof aan dareensan ma jiro oo madaxweyne waa dareensan tahay oo nimanka musharaxiinta ee xisbiyadu way dareensan yihiin oo nimanka ururada ee soo socda way dareensan yihiin waa dadkiina u wada tudha war hoos wax u eega war isku tashada oo mid noqda wanaagana ka taliya laakiin isku riixa iyo anaa ka xoog weynaaday beritoole taariikh xun unbaa ayay reebtaa taariikh wanaagsan waa ninkii berigii hebel ka guulaystay ma reebto mudane madaxweyne fariinteedu gaarkii waxa weeye tanaasulku waa guusha ugu sarreysa la gaadho madax meel laga sareeyo la taabtaana ma jiro tanaasul iyo dhanka bulshadaba waxa inooga filan tusaale madaxweyne Daahir Riyaale markii uu tanaasulay sharafta uu ka helay iyo sida ilaa maanta loogu qiimeeyo marka waxaan ku leeyahay madaxweyne u tanaasul dalkaaga oo shuruucdii aad ka hadlaysay fuli hadda waxaan leeyahay muddadan yar inoo hadhay wuxuu yidhi waa yelo ayo waa inuu kaanaysiiyeen war anigii inta idinka iyo naga weyn waxa leenahay war ubadkeena aynu tudno oo aynu ka deynayo iyo tantano madaxweyne marka soo noqotin dadka uruure oo meel u jihe oo shuruucdan iyo waxana sida fiican ee ku wanaagsan u aqbalo u sii dabaan oran lahaanu wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh